soo dhawaada qaybtii sideedaad ee barnaamijka bayaanka danab. barnaamijkan bayaanka danab waa toddobaadle aan ku soo qaadano warar iyo sheekooyin ku saabsan ciidanka kumaandooska danab. waxaad barnaamijka 10 barqanimo jimco kasta aad ka daawan kartaa bogga aan ku leenahay YouTube-ka ee bayaanka danab iyo Facebook-ga danab media. waxaad sidoo kale ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho, Radio Kismaayo, Radio Baydhabo, Radio Galgaduud iyo Radio Baladweyne isla maalinimada jimcaha 3 barka galabnimo. qodobada aan barnaamijka ku soo qaadan doono daawadayaal waxaa qayb ka noqonaya wararkii ugu dambeeyay toddobaadka ciidanka danab waxaana ka mid ah ciidamada danab oo howlgal ay ka fuliyeen gobolka Jubbada Hoose ku dilay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab. duqeyn Al-Shabaab lagula beegsaday gobolka Mudug iyadoo ciidamada danab ay sii wado howlgallada ka dhanka kooxda ee ka socda gobolkaasi. cutubyo ka mid noqonaya ciidanka kumaandooska danab oo tababar loogu furay xerada Beledoogle. waxaa kaloo barnaamijka idinku haynaa ciidamada danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay howlgal ka dhana maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ka socda gobolka Mudug ee bartamaha dalkeena Soomaaliya. Anooshilaawa Cabdilaahi Cabdiraxmaan ayaa barnaamijka idila socodsiinaya. isku soo noqod wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal. mar kale barnaamijka bayaanka danab. ugu yaraan 15 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa lagu dilay howlgal ay ciidanka kumaandooska danab ka sameeyeen deegaano ku yaala galbeedka gobolka Jubbada Hoose. howlgalkan oo ay fuliyeen ururka shanaad guutada 16aad ee ciidanka kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa maalintii Isniinta laga sameeyay deegaano galbeedka ka dhaca gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay ciidanku sidoo kale burburiyeen fariisimo ay kooxda Al-Shabaab ku lahayd. howlgalkan oo qayb ka dadaalada ciidanka sida gaarka u tababaranaya danab ay ku baacsanayaan maleeshiyaadka Al-Shabaab. toddobaadii u dambeeyay ururka shanaad ee danab waxa uu kordhiyay howlgallada iyo weerarada ka dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab. waxay tani keentay in culayskii iyo dhibaatadii ay Al-Shabaab shacabka ku hayeen ay hoos u dhacdo sida ay sheegeen saraakiisha danab ee ku sugan Jubbada Hoose. ciidanka danab iyo saaxiibada caalamiga ah ayaa fuliyay 2 weerar oo dhinaca cirka ah isla markaana lala beegsaday maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaano ka tirsan gobolka Mudug, halkaas oo muddo ka badan 4 toddobaad ay kumaandooska danab ka wadaan howlgal ka dhana maleeshiyaadka Al-Shabaab. duqeyntii koobaad oo dhacday maalintii Talaadada 20kii bishan ayaa lala beegsaday goob ay isku urursanayeen Al-Shabaab oo ku taala meel u dhow deegaanka Bacaadweyn. waxaa gantaal lagu dhuftay saldhigaya Al-Shabaab lahayd laguna burburiyay hub ay kooxdu lahayd. ma jirto wax khasaare ah oo shacabka soo gaaray. duqeynta labaad ayaa jimcihii 23 Julaay ka dhacday deegaanka Qaycad oo ay u ruqaansadeen ciidanka danab sida ay Al-Shabaab uga saaraan. duqeynta ayaa bartilmaameedkeedu ahaa inay hoos loo dhigo awoodda kooxda iyo burburinta hubkooda. gaashaanle Cabdiladiif Axmed Fayfle, taliyaha ururka 6aad ee kumaandooska danab, ayaa sheegay in guul weyn laga gaaray bartilmaameedkii laga lahaa weerarkaas iyo weliba howlgalka ka socda gobolka uu xusay in dharbaaxo weyn lagu gaarsiiyay Al-Shabaab. maanta taariikhda tahay 20 bisha 6 2020 waxaan joognaa deegaanka Qorshow u dhow area Qaayib iyo Gadoon dhexdooda oo saldhig ay ku lahaayeen khawaarijta Al-Shabaab Al-Qaacida. waxaa ka howlgalay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada 16aad ururka 6aad ee danab iyo guutada Golgol ururkeeda shanaad. ilaahay maadis waa ku guuleysanay. waxa dhiba oo saas weyn kama aanan kulmin. way carareen daciiftinimada iyo doqonimada shacbiga bay naftooda maalkooda dhibaateeyaan. ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed uma bardhi karaan. ilaahay baa mahad iska leh. tan iyo markii uu bilowday howlgalka gobolka Mudug ee ciidamada kumaandooska danab iyo ciidamada isgarabsanaya waxay ka xoreeyeen Al-Shabaab deegaanada kale ah Bacaadweyn, Qaycad iyo Camaara, iyadoo howlgalka lagu dilay maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan Al-Shabaab. daawadayaal warbixin dhammaystiran oo ku saabsan howlgalka gobolka Mudug ka socda ayaan barnaamijka mar dhow idinku soo gudbin doonaa. taliska ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa tababar ugu furay xerada Beledoogle askar cusub oo loo qaatay inay ka mid noqdaan ciidanka danab. xaflad lagu daahfurayay tababarka ayaa waxaa ka qayb galay saraakiisha sare ee ciidanka kumaandooska danab, macallimiin iyo askar. askarta cusub ee loo tababaraya ayaa laga kala keenay
gobollada dalka waxayna soo mareen hanaan kala duwan ka hor intii aan si rasmi ah loogu qorin inay ciidanka ku biiraan. kusimaha taliyaha guutada 16aad gaashaanle xasan maxamed cismaan xasan tuure oo xafladda ka hadlay ayaa ku booriyey dhalinyarada cusub ee loo qaatay ka mid noqoshada ciidanka inay ka dhabeeyaan riyadooda una qaataan tababarka sidii loogu talagalay. waxa uu sheegay inay danab ka go'an tahay inay fursad siiso dadka dhalinyarada ah ee doonaya inay ciidanka ku biiraan. hawsha qaadashada askar cusub ayuu ku tilmaamay inay u furan tahay muwaadin kasta oo Soomaaliyeed. kumaandooska danab ayaa hela tababaro casri ah oo heerkoodu aad u sarreeyo. kuwaasi waxay ahaayeen wararkii toddobaadka ee ciidanka kumaandooska danab. weli waxaad daawanaysaan qaybtii 8aad ee barnaamijka bayaanka danab. sidii aan wararka barnaamijka idinku soo gudbinay, ciidamada kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed waxay toddobaadyo ka hor qaadeen howlgal ballaaran oo lagu weeraray deegaano iyo saldhigyo ay lahayd kooxda maleeshiyaadka Al-Shabaab oo ku yaala gobolka Mudug ee bartamaha dalkeena Soomaaliya. howlgalkaasi ayay ciidanku ka gaareen guulo waaweyn iyadoo deegaano dhowrana laga saaray maleeshiyaadka Al-Shabaab. howlgalka ka socda koonfurta gobolka Mudug oo ay iska kaashanayaan ciidamada xoogga dalka sida danab, nabad sugidda iyo daraawiishta Galmudug ayaa bilowday dhowr toddobaad ka hor, wuxuuna daba socdaa qorshayaasha dib u xiraynta ee horay ciidanka uga sameeyeen gobolada Shabeellada Hoose, Shabeellada Dhexe iyo Jubbada Hoose. ciidamadani iskaashanaya oo ay danab hormuud u tahay ayaa guulo waaweyn ka gaaray howlgalkan, waxayna isku ballaariyeen deegaano cusub oo ka tirsan gobolka wixii ka dambeeyay weerarkii ka dhacay deegaanka Wisil dhamaadka bishii Juun. gulufkii ka dhashay weerarkii shabaabku soo qaadeen ilaa hadda waa mid ka socda oo lagu daba joogo oo lagu baacsanayo oo maalin kasta iyo meel cusub xabadu ka dhacayso oo shabaabku ay ku barakaceen oo ay ku baabi'een oo ay ku qaxeen. ciidamada danabna ciidamada howlgalaya xoogga dalka Soomaaliyeed sida qaybta 12aad sida ciidamada daraawiishta Galmudug sida ciidamada nabad sugidda iyo dad aan la hilmaami karin oo deegaanka ah. operationkaas guud ee ciidamadaas isgarabsanaya ayaa ciidanka danab qayb ka yihiin. howlgalkan wuxuu muhiim u yahay xaqiijinta nabad waarta waxaana looga qabsaday Al-Shabaab deegaanada Bacaadweyn iyo Qaycad halkaas oo ay saldhigyo waaweyn ku lahaayeen. dhamme Cabdiladiif Axmed Feefle taliyaha ururka 6aad ee danab waxa uu sheegay in sidoo kale la qabtay xubno badan oo ka tirsan Al-Shabaab. waxa howlgalka dhulka weheliyay duqeymo xagga cirka ah oo iska kaashadeen ciidamada howlgalka ku jira sida danab iyo saaxiibadooda caalamiga ah. guulo badan baa laga gaaray, dad badan oo shabaab oo la yaqaano ayaa la laayay, dad shabaab oo la yaqaano oo deegaanka u dhashay Galmudug ayaa iska soo dhiibay oo godadkii iyo meelihii ugu dafaay markii laga weeraray eriya dhulba u adkeysan waayey ayaa hadda gacanta ciidamada ku jira iyo maamulka Galmudug. marka la eego howlgalkan saameyntiisu waa mid culayska ka yareynaya magaalooyinka gobolka Mudug oo maamulida degmooyinka ay iska kaashadeen xagga amniga la leeyihiin ciidanka danab. ciidanka kumaandooska danab waxay ka mid yihiin ciidamada amniga suga ee gobolka Mudug iyo deegaanada Soomaaliya. waxaana isleenahay waxay ka qabteen amniga waxyaabo badan oo la taaban karo. saraakiisha ugu sareysa ciidamada danab ama se laamaha amniga oo dhan waxay wada shaqeyn la leeyihiin maamulka ama heer gobol ama heer degmo si looga wada shaqeeyo amniga gobolka iyo kan degmada. howlgalkan hadafkiisa sidoo kale waa ilaalinta shacabka. xarunta gobolka Mudug ee Gaalkacyo waa mid laga dareemayo howlgalkan oo shacabku ay hadal hayaan, waxay u arkaan in natiijadiisa ay dan ugu jirto amnigooda iyo noloshooda. wax wanaagsan baa ugu jira, nabadgelyo ugu jirta, taariikh wanaagsan baa ugu jirta. Gaalkacyo waa gobol Mudug leeyahay magac dheer, weligeedba tilaabo xun baa lagu soo qaadi jiray, guul baana laga gaari jiray iyo nolol wanaagsan. Gaalkacyo waxa faa'iido u jira Gaalkacyo magaalo badan dagaal badan ka dhacay, hadda taana waxa faa'iido u jira deegaanadaas inay wax dambe ka dhicin amniga Gaalkacyo. mustaqbalka waxaan rajaynaynaa haddii qof walba uu doorkiisa ka qaato nabadda oo la wada xoojiyo oo micnihii ummaddu ay gacmaha isqabsadaan oo la isku xirnaado in ay noqon doonto 100% baraaraha ugu wanaagsan. dhamme Feefle ayaa sheegay in howlgalka gobolka
uu sii socon doono ilaa laga xoreynayo deegaanada weli la haysto waxaana shacabka ugu yeeray in ay la shaqeeyaan ciidanka si looga miro dhaliyo guulaha la gaaray al-shabaab kitaab ilaahay kuma dhaqmaan mid yani maaragtay lagu heshiina kuma dhaqmaan ummadda oo xoolaha laga qaato oo si sharci darra looga qaato oo waxa weeye maaragtay qofka oo nabdiisa waafaqsanin oo la handado oo la xiro yani maaragtay dhaqamadooda al-shabaab wixii lagu yaqiinay unbaa deegaankan ka jiray oo deegaanada ay soo kharibeen ama hadda ay joogaan ay ku hayeen guulaha u dambeeyay ee ciidamada danab iyo kuwa kale ee Soomaaliyeed ay gaareen ayaa loo arkaa mid loo qaaday dhinaca nabadda iyo amniga Soomaaliya waxa xaqiiqa in guusha ay danab ka gaartay maleeshiyaadka al-shabaab ay wax weyn ugu fadhido shacabka Soomaaliyeed ee muddada la daaladhacayay dhibaatada al-shabaab guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeriya barnaamijka qaybtii 8aad ee toddobaadkan ha mooganaan inaad rukumato bogga YouTube-ka ee bayaanka danab ku dhufo calaamada gabaleelka si aad ula socoto barnaamijka kan xiga waxaad wararka iyo macluumaad ku saabsan kumaandooska danab ka heli kartaa bogga Facebook ee Danab Media isla barahan bulshada ayaad fikirkaaga barnaamijka uga dhiiban kartaa waxaa sidoo kale barnaamijka aad ka dhageysan kartaa idaacadaha kale ah Radio Muqdisho Radio Kismaayo Radio Galgaduud Radio Baydhabo iyo Radio Beledweyne nala wadaag fikirkaaga oo soo wac ama fariin qoraal u soo dir idaacadaha aad hadda barnaamijka ka dhageysanayso ha mooganaan daawade barnaamijka toddobaadka dambe xilligan oo kale oo aan idinku hayno sheekooyin xiiso badan intaan mar kale kulmi doono waxaan idinkaga tegaa sidaas iyo nabadgelyo